بسم الله الرحمن الرحيم عيدي دغمانka degmada dhaxar taasi oo magaalada farxadeeda weyn ee lagu tukado salaada ciida ay isku soo baxeen dadweyne fara badan oo ka qayb galay salaada ciid al-fidriga waxa halkaasi aan ka marnayn warbaahinta Somali Public Radio iyo shaqaalaheeda taasi oo ay halkaas ay ka wadeen hawlo aad u fara badan Allahu akbar 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 waxa halkaasi khudbad la yaab leh ka soo jeediyay Sheekh Cabdullaahi Cabdi Shabeele khudbadaas oo ahayd mid qiimo weyn ku fadhiday oo kuna taabanayay waajibaadka uu leeyahay soonka iyo mid ku saabsan deegaankaba tiradii bisha Ramadaan ee leedinka rabay ولتكبروا الله على ما هداكم إلى سئل وينيسان وهنا تكبيرتان وعن نعملها هذه وتكبيرتي أنا أخيني إلى أي حالي يعني نعمة آدوي وحاء في رمضان الله ينقوسمه نعمة آدوي وحاء sidoo kale waxaad halka ka dhaxarkaysay mas'uuliyiin fara badan oo ka soo qayb galay salaada ciida waxaan sidoo kale mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynihii isugu soo baxay fagaaraha weyn ee lagu tukanaya salaada ciida degmada dhaxar waxaan u kala wareysanay si kala gaargaar ah iyaga oo ka warbixinaya jawigooda iyo nin walba shucuurtiisa magacaaga nagu bilow magacaygu waa Cabdur Cabdulqaadir Muuse ciidka soo wadarta maanta ra'yigayga markaan ka hadlo ciidka markaan maanta ka hadlo ciidka aad baan u faraxsanahay maadaama ay maanta tahay maalin aad u weyn ay dadku wada ciidayaan islaamka meel kasta ay ka joogaan ra'yigayguna aad u wanaagsan yahay waxaan dadka ugu shaaranaya ciid mubaarak magacaygu bilow bismillaahir rahmaanir rahiim aywa Maxamed Awal Cabdullaahi ciidka maanta soo wadarta tii waxaan wadaa inuu yahay ciidkan mid ka duwan ciidka hore aan ciidi jireen maadaama aan bishii horta waxa weeye talabaad ummadda Soomaaliyeed ummadda islaamka meel walba ay joogto inay isku maalin ciiday gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bashaaranayaa waxaan ugu hambaleynayaa ciid mubaarak waxaan أنتم وحليا كل عام وأنتم بخير إلهي عيدكم عيد كيسا إسراء ونبض وحان آدي سكارة سوف شمال وتحق لنا ومهد عليا إذا عدى صومالي بابليك هذه SBR شيخ مقعد نقبله مقعد واحد يرادا شيخ إبراهيم آذن جامع سيدا بدورة عيدكم أنت عيدكم أنا أنت marka ciid aad wanaagsan inuu yahay ilaahay isku waafajiyay dadkii muslimiinta oo dhan hal mar la wada ciiday reyn iyo farxad iyo wanaag ayaan u arkaa شمال حاج هذا سوى درك عيدكم أنت والله عيدكم aad عيدكم يعيدكم في كل كثير والله قاعد بكثير صوته waxa halka ka muuqda aad iyo aad shacab عبد المالك محمود فارح سوى درك عيدكم أنت ما شاء الله سوى عيد كذي عيدي ورا محيو كل دوين واحد من كل دوين كانوا موافقة إسراع تام خلاف الآن بيقول بعد يقولوا ياسين عبد الواحد محمد سوى دورك عيد كمان هذه عاد عيد الله لو عيد بس عيد الجماعة عيد عادي
حالة كلام نبض يا شو ما عيد كان يعيد كل حي كل دوين عاد عيد كدوان عيد وقال سدعة عارف ترين عيدها بس خلاف وعمل لك العيد عيد كمان عالم الإسلامي magacayga igu bilow magacayga waa maxamed cabdi عيد سوى دار تمام عيد waxaan u arkaa wax wanaagsan aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan islaahay ciidii hore wuxuu kaga duwan yahay hal mar ayaa la wada ciiday magacayga nagu bilow magacayga maxamed xuseen ciidka soo wada arkaa maanta ciidka waxaan u arkaa maalin farxadeed dadka isku wada raacsan iyo bishii awal loo kala jeeday xer iyo dadka caadiga ah marka xertii meeshii ku yeedaysa dadka caadiga ah ku yeedayaan wana farxadda عاقل نقول بلو أحمد محمد عيد كمان تسوي دركته عيد كمان ورقنا عيد لونا ياهي وورقنا عيد بركايسة وحن ورقنا عيد مسلمين توي شكر عسيين أنا تفرارق لهاي وحن ورقنا مقالة دنيا وده عيد سنتهاي وحن ورقنا يرقي وين دمر رقي دمر الرولة يو عام اللي يرى يوين كله ياهي وهاسي شرف اللو عيد يو وإلهي لقى عبسنا يو وصدقة الله بحيو وسكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga igu bilow. magacaygu waxa weeye Cabdi Xasan Aadan ayaa leeyahay. Cabdi Xasan Aadan ciidka maanta sabab aragtaa. ciidka maanta ciidadkii hore waxa ka duwan yahay bulshada. aad barwaaqo barwaaqa ah aad buu uga shacab badan yahay ciidadkii hore. nabadgelyada iyo jawga marka eegto. boqolkiiba aad buu fiican. Assalaamu calaykum. waxaa halkaasi ku soo gabagaboobay salaadii ciidda iyadoo halkaasi la iscafiyay la iskuna saamaxay barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyay aniga oo ah Axmed Maxamuud Xuseen waxaa igala qayb qaatay dhinaca farsamada Naciimo Muuse Cilmi intaaynu kaasoo kala dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عامك